maanta waxa aan qaadanaynaa cashar aad iyo aad muhiim u ah. Haddaba sidee loogu dhawaaqaa markii ay israacaan A iyo Y? Hadhihin ay hadhihin, waxaad ugu dhawaaqaysaa sida A oo kale, A. Tusaale ahaan, nambarka koowaad hadhihin my, waxaa leedahay May, May, sababtoo ah A iyo Y markii ay israacaan waxaa loo akhrinayaa sida A oo kale. Marka May ayaa leedahay, waxaana loola jeedaa bisha shanaad. Nambarka labaad waa day, day waa maalin, day waa maalin. Nambarka saddexaad waa pray, pray, tukasho ama ducaysasho ayaa loola jeedaa. Pray waa dukasho ama ducaysasho. Nambarka ku xigo waa spray, spray, buufi ayaa laga wadaa sida sunta oo kale. Markaad dhihaysid buufi, waxa ay noqonaysaa spray. Nambarka ku xigo waa stay, stay waa joogid, stay waa joogid. Nambar 6 waa x-ray, x-ray waa raajo, x-ray waa raajo. Nambarka ku xigo waa today, today waa maanta, today waa maanta. Nambar 8 waxa ay noqonaysaa way, way, way hadhihin, way ayay noqonaysaa, waa wado, way waa wado. Nambar 9 waa say, say ayaa leedahay, waxaa loola jeedaa dheh, say waa dheh. Ugu dambeyn isku day inaad ku dhawaaqdid ereygan hoos ku qoran oo micnihiisu yahay lacag bixin. Sidoo kale ha iloobin in aad na soo follow gareysid oo aad share gareysid muuqaalka si arday badan uu u gaaro. Mahadsanid.